السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastoo daafaha caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada barnaamij aan kaga hadli doono awoodda ay Iran ka muujinayso wadamada bariga dhexe oo dhan. barnaamijka waxa idila socodsiinaya haddii Allah awoodda la ogolaado anigoo ah Maxamed Saciid Cali Maxamed Turki, waxaanad kala socotaan barta aan YouTube-ka ku leeyahay ee Maxamed Turki channel. dowladda Iran ayaa galaangal siyaasadeed ka wada wadamada bariga dhexe iyada oo markaasi cudud military iyo ismuujin dhinaca awoodda ku siyaadinaysa wadamadaasi. sidoo kale dowladda Iran ayaa kaalmo military iyo waliba kaalmo dhinaca dhaqaalaha siisa ururada hubeysan ee ka dagaalama wadamada bariga dhexe, gaar ahaan wadamada Yemen, Lebanon iyo waliba Iraq iyo Suuriya, kuwaasi oo ay ugu cadcad yihiin kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen ee dagaalka kala horjeeda dowladda caalamku aqoonsan yahay oo madaxweynaha u yahay Rabbi Mansuur Hadi. sidoo kale kooxda Hezbollah ee ka dagaalanta dalka Lebanon ayay Iran siisaa kaalmo dhinaca militariga iyo waliba dhinaca dhaqaalaha. kooxdaasi oo iyaduna dagaal hubeysan kala horjeeda dowladda Israa'iil. sidoo kale dalka Iran iyo waliba Mareykanka ayaa markaasi isdhaafsada hanjabaado halisa iyada oo markaasi maalinba maalinta ka dambaysa ay ku dhaqaaqayaan labada dhinac xiisad colaadeed oo ay uga sii darayaan xaaladda qalafsan ee markaasi ka kala dhex taagan, iyada oo markaasi Iran ay mar walba ku tallaabsanayso inay markaasi ay galaangal siyaasadeed iyo waliba cudud dhinaca militariga ay ku yeelato dhulka bariga dhexe iyo waliba wadamada Carabta. sidoo kale Iran waxa ay markaasi doonaysaa inay samaysato hubka nuclear-ka ee sida baan wax u gumaada, inkasta oo markaasi heshiis lagala gaadhay dalka Iran inay joojiso hubkaasi nuclear-ka. heshiiskaasi oo u dhaxeeyay quwadaha waaweyn iyo Iran iyo waliba Mareykanka iyo xulafadiisa reer Yurub, balse dalka Mareykanka ayaa isagu heshiiskaasi gebi ahaan ka baxay. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in heshiiskaasi hubka nuclear-ka ee lala galay Iran isla markaasina lagu bedelanayay in markaasi ay Iran joojiso hubka nuclear-ka iyadana lagaga khafiifinayay cunaqabataynta saaran. waxa uuna sheegay madaxweynaha dalka Mareykanku inuu heshiiskaasi uu yahay mid lagu khiyaameeyay dalka Mareykanka. sidoo kale haddii ay Iran damaceeda ah inay samaysato hubka nuclear-ka uu hirgalo, waxa ay noqonaysaa awood ka soo daahirtay wadamada bariga dhexe oo aan markaasi la muquunin karin. sidoo kale suurtagal ma tahay in dalka Mareykanku uu dagaal toos la galo dalka Iran? khubarada doorasta siyaasadda isla markaasina oo doorasta ayaa waxa ay tilmaamaan inaanay suurtagal ahayn inuu Mareykanku waqti xaadirkani dagaal ku qaado Iran, taasi oo loo sababaynayo duulaamadii uu ka geystay wadamada Iraq iyo Afghanistan, taasi oo markaasi la sheego inuu ka soo gaadhay jab aad u weyn iyada oo askar badan ay kaga dhimatay. isla markaasina dalka Mareykanku waqtigani la tiicayo khasaarihii iyo dhibaatadii ka soo gaadhay duulaamadaasi uu ku qaaday wadamada Iraq iyo Afghanistan, ayaa haddana waxaa la sheegaa inaanu waqtigani Mareykanku aanu diyaar u ahayn inuu markaasi ku qaado dagaal toos Iran, balse waxaa la sheegaa in ay markaasi hanjabaadaha Mareykanku u jeedinayo Iran ay yihiin biyo coldhaanshay oo kale. sidoo kale dowladda Iran ayaa markaasi la tilmaamaa inay leedahay awood military iyo waliba markaasi hubaadu fara badan oo ay ku farsamaysay dalkeeda, waxaana laga dareemi karaa kooxda xuutiyiinta ee ay taageerto oo weerar markaasi ku liishaamay gantaalo iyo waliba diyaarado drones isugu jira dowladda boqortooyada Sacuudiga, taasi oo markaasi ay kharbudaad iyo khalkhal geliyeen shidaalkii ka soo bixi jiray boqortooyada Sacuudiga oo gebi ahaan istaagay. sidoo kale khubarada falanqeeya siyaasadda ayaa waxa ay sheegaan hubka iyo saanada ay Iran siiso ururada xuutiyiinta iyo Hezbollah ay markaasi ay yihiin kuwo markaasi wax fara badan ka taray in ay kooxahaasi ay joogteeyaan weerarada ay ku kala hayaan dowladda Yemen ee markaasi
uu madaxweynaha ka yahay cabdirabbi mansuur haadi iyo weliba ururka Xisbullah oo markaasi isaguna dagaal hubaysan kala horjeeda dalka Israa'iil waxaana la tilmaamaa inaan ururadaasi ay yihiin kuwa markaasi saanad military iyo awood fara badan leh balse dowladda Iran ayaa markani waxa ay rabtaa in ay iyada lafteeduna ay markaasi ay dabkeeda ku shidato dabka ka holcaya bariga dhexe waa tahay daawadayaal intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Maxamed Saciid Cali Maxamed Turki intaynu barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo